Assalaamu calaykum. Xamiitida waa xubin Rabbi weyne beerka ka hoos mariyay oo waxay ku taallaa caloosha qaybta sare dhanka midig. Waa xubin yar sida jeebka lagu kaydiyo dheecaan la yiraahdo bile. Bile-ku waa dareere midabkiisu yahay cagaar, huruud ama jaale xigeen. Waxa uu ka qayb qaadanayaa dheefshiidka. Aqoon dhammaystiran lagama haysto waxa dhagaxani keeni kara, laakiin sida laga soo xiganayo jaamacadda Harvard qaybteedii caafimaadka, boqolkiiba 80 xamiitida in uu dhagax ku sameysmo waxay timaadaa marka uu kordho kolestaroolka bile-ka ku dhex jira, halka boqolkiiba 20 ay keenaan maadooyinka kale ah calcium-ta iyo bilirubin. Dadka xamiito dhagaxa leh inta badan iskuma arkaan wax calaamado ah, laakiin haddii ay xaaladoodii sii xumaato, calaamadaha lagu arki karo waxaa ka mid ah xanuun laga dareemo caloosha qaybta sare, garabka midig iyo dhabarka, lalabo iyo matag, kaadi madoobaad, midabka kaadida ayaa doorsooma, calool xanuun iyo shuban. Waxaa lagu daweyn karaa qaab qaliin ah. Xamiitada in dibadda loo soo saaro haddii aan bukaanka laga daweyn waxay keentaa in uu caabuq ku dhaco xamiitada, afka qalaad lagu yiraahdo cholecystitis. Xaaladani waxay dhacdaa marka dhagaxa u soo dhaqaaqo dhanka tumbooyinka bile-ka sida. Kadib waxay natiijadu noqonaysaa in uu xidhmo marinka bile-ka. Waxaa halkaasi ku bilowda caabuqa xamiitada. Waxa uu ku dhici karaa hooyada uurka leh, dadka buuran, dadka da'dooda ka saraysa 60 sano, dadka macaanka qaba, iyo dadka qof ka mid ah qoyskooda hore u lahaa. Waxaad uga hortagi kartaa adigoo joogteeya jimicsiga iyo inaad ku dadaasho cunnada caafimaadka ah.